Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay hanaanka ay u socoto doorashada shirguddoonka Golaha Shacabka iyo weliba caqabadihii kala duwanaa ee kasoo gudubtay doorashadu, isagoona ugu baaqay xildhibaanada inay doortaan shakhsi u qalma hogaaminta Golaha Shacabka. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa hadalkan ka jeediyey kulan uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Switzerland. Lidinkaga ma sheekeynayo waa ka warhaysaan xaaladda uu dalka soo maray, marxaladaha kala duwan uu soo maray, isqabqabsigii faraha badnaa. Maanta oo 25 waa maalintii dagaalka ka dhici lahaa Muqdisho, hadda xasuusataan, oo muddo kororsigii February la kororsaday dagaalkii dhici lahaa maanta kale oo ahaa, hadda xasuusataan, oo dalka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyey. runtii dadku waxay dhahaan Rooble saan u sabab ah may shacabka Soomaaliyeed waa shacab Ilaahay uu leeyahay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadsada dalkan. wax badan la isku dayay ajnabi Soomaali inay dalkan qar ka tuuraan iyagoo eeganaya dana gaar ah. marka Allah subxaanahu wa tacaala oo ummadiisa u naxayo dad masaakiin ah ayay shacabka Soomaaliyeed u badan yihiin, oo la rabay in la qaxiyo, la dhibaateeyo, gaajo u baadaan, iyo ducadiina shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo oo u duceynaya inuu dalkooda iyo dadkooda Ilaahay u badbaadiyo. saa darteed waxaan anaga sunnadii waxa waa Allah subxaanahu wa tacaala ayaan sameeynaa maahane wax kale ma dheerin, dadka aqoon ma dheerin, karti ma dheerin, geesinimo ma dheerin, wadannimo dadka kale ma dheerin, kaliya waxa uu Ilaahay dadkiisa ku ilaashanay kaliya oo anaga noo soo adeejiyo. horta taas ogaada. waa runtii waxa laga yaabaa dadkii maskaxdiina inay ku jirto dalka labada nin oo u sareysa iyo maxay arintan u xalin laayihiin iyo waa run waayo waxa dalka Soomaaliya baabi'iyay waa dana gaar ah, ama shakhsi ahaado ama shakhsi ka dambeeya ahaado. maanta leedin kaga ma sheekeynayo waxa dhacayo oo sida darandoorigu dhacayo waa wax cadeyntooda aad haysaan oo leedin kaga sheekeynin cidda waxa falayso, meesha loo socdo, cidda hortaagan, isku dayada dib u dhaca lagu sameeynayo, cidda sameynayso. laakiin Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna barayaa dariiqa ay ku istaagayso oo ah inuu dariiq adag yahay, laakiin waa wada guuleysanaynaa insha Allah. waxaan wadanka xoroobay oo hadda ay dawladnimada noo soo caraftay qamiistii hore ee 14 bishii markii xildhibaanada la dhaariyay ayuu dalka wuxuu ka baxay hubanti la'aantii uu ku jiray, oo wuxuu helay hay'ad sharciyeysan oo ah hay'adda ugu sareysa dalka oo loo dhaariyay xildhibaanadeedii. haddana waxaa berri la dhaarinayaa guddoonkii iyo aqalka sare, waxaa ku xiga berri dambe hadduu Allah subxaanahu wa tacaala kii Golaha Shacabka. marka kadib ayaa waxaa la rabaa in madaxweynihii la doorto. way fiican tahay saansaanta socoto shalay iyo maanta iyo daraad iyo tartanada xoogan oo internetka ka socda, hebel la ammaanayo, hebelka la sii ammaanayo, guddoonkii iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo waa saansaan wanaagsan oo dalka u horseedayso in oo maxaa la yiraahdaa uu helo nidaam. waana astaan fiican runtii. waxaan ku xigto haddii Allah subxaanahu wa tacaala uu idmo 27 guddoonka la helo oo aqalka Golaha Shacabka. runta idin sheegaya haddii guddoomiyaashaas noqdaan dad sax ah oo xaq ku taagan oo sharciga ilaalinayo, oo isan hadhow madaxweynaha meeshuu u leexiyo ama hantida la soo dhacay wax laga siinayo la leexdaan, dalkaas horumar gaari maayo. waxaa la rabaa guddoomiyaha la dooran doono berri oo aqalka sare rag baa hadda u tartamayo, kii Ilaahay u garto kulligood saaxiibaan lahay. saddexdooda la soo wada shaqeeyay, saddex umalayna inta tartamayso, saddexda waa la soo shaqeeyay in loo duceeyo, kii yimaadana Ilaahay looga baryo inuu xaq maro. kan 27 arbacada Soomaan la dooranayna waa rag fara badan, tiradooda kor kama xasuustay, laakiin waa muhiim waay inay dastuurkaas ka shaqeeyaan oo ay dhameystiraan dalka. doorasho hal qof hal cod waa la sameyn karaa, waxaan la sameyn karin malahan inay dalka galiyaan doorashadaas, dastuurka ay dhameystiraan. dastuurkaas wuxuu muhiim noogu yahay, wuxuu kala saarayaa awoodaha oo fulinta, madaxa iyo sharci dejinta. haddii saddexdoodaas la kala garan waayo cidda iska leh howlaha, waxa waaye wadankan af iyo daba isaga xirnaanaya. marka Ilaahay ha laga baryo in guddoon fiican la doorto. guddoonkaas fiican hadduu noqdo qof Ilaahay ka cabsanayo oo saliim ah oo saalix ah oo wanaagsan, waa wada badbaadaynaa. laakiin hadduu noqdo nin madaxweynaha mustaqbalka soo socda ku shaqaysan doono dalka isla meeshii uu aadaya, annagana habaaran daba dhigayna. habaarka hadduu
dabagalana waxaa waa la wada baaba'aya. marka waxaan leeyahay xildhibaanada ha fiirinina qabiilka, ha fiirinina kan idin dhow, waxaad fiirisaan yaa badbaadin kara. Caamir Cabdirashiid Cabdilaahi Caamir Yabash, Saab TV. qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah, ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya? islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 150.